bismillaahi raxmaani raxiim kulanti habboon nabadda wadayaal halkani waa ogaal TV kusoo dhawaada wararka caalamka iyo kuwa Soomaalida qodobada ugu waaweyn oo warkana ku daawan doontaan waxaa kamid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo xilal ku abaalmariyay xubnihii kamid ahay shakhsiyaadkii ka dambeeyay guushiisa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo lagu helay faldambiyeed qatar ku ah dowladnimada Soomaaliya iyo ra'iisul wasaare Roble oo degdeg shaqadii ugu joojiyay mooshin ka dhanaa madaxweyne lafta garan oo ka qaraxday muqdisho iyo beelaha degil iyo mirifle oo dejiyay qorshe xilka looga tuurayo saaxiibkii siyaasadeed maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo albaabada ka xirtay taageerayaashii farmaajo iyo magacaabista xilka ra'iisul wasaaraha oo meel gabagaba maraysa iyo xogan laga helayo dowladaha shisheeye ee sharci darrada ku lumeysa kheyraadka Soomaaliya iyo dowladda cusub oo dejisay qorshe cusub oo lagu xisaabtamayo dowladahaasi qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad warkeena ku daawan doontaan balse marka hore daawadayaal subscribe noo saara barteena YouTube-ka sidoo kale like iyo follow noo saara barteena Facebook-ka ee Ogaal TV waa hagaag daawadayaal isku soo noqod wanaagsan aynu ku bilownay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa xilal ku abaalmariyay xubnihii kamid ah shakhsiyaadkii ka dambeeyay guushiisa madaxweynaha cusub ee dowladda federaalka Soomaaliya oo shir jiraa'id u qabtay wariyaasha ayaa xil u magacaabay Cabdiraxmaan Abshakuur Warsame oo haatan ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya madaxweynaha ayaa siyaasigan in muddo mucaarad sawd ahaayeen ayaa u magacaabay inuu noqdo ergeyga gaarka arrimaha bini'aadanimada Soomaaliya sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in Cabdiraxmaan si mutadawacnimo u qaban doono shaqadan maadaama uu yahay xildhibaan qaran oo sidoo kale ugu bariyay inuu u fududeeyo mas'uuliyadda loo igmaday ee gargaaridda dadka Soomaaliyeed ee dhibaataysan Cabdiraxmaan Abshakuur ayaa kamid ahay musharaxiintii mucaaradka ka qayb gashay doorashadii madaxtinimada ee 15 bisha May taasoo ku soo baxay xasan sheekh maxamuud magacaabista ayaa ku soo beegmaysa xilli Soomaaliya haatan la daaldhacayso abaaro baahsan oo ku dhuftay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya si kastaba madaxweynaha cusub ayaa hore u magacaabay la taliyihiisa amniga qaranka agaasimaha guud ee madaxtooyada iyo ku-xigeenkiisa daawadayaal wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo lagu helay faldambiyeed qatar ku ah dowladnimada Soomaaliya iyo ra'iisul wasaare Roble oo degdeg shaqadii ugu joojiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane maxamed xuseen Roble ayaa shaqo joojin ku sameeyay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdisiciid Muuse Geele kadib warqad uu soo saaray Roble ayaa eedan culus u jeediyay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya waxaana eedaha loo jeeday kamid ahay ku tagrifal awoodeed ra'iisul wasaaraha dalka ayaa shaqada ka joojiyay wasiirka arrimaha dibadda Cabdisiciid Muuse Geele ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare Roble sidoo kale qoraalka ayaa waxaa lagu sheegay in ra'iisul wasaaraha baabiye warqad wasaaradda arrimaha dibadda ku fasaxday marka waday dhuxul sharci darro ku xirnay xeebaha dalka Cumaan ugu dambeyntii wuxuu ra'iisul wasaaraha faray hantidhoorka qaranka iyo hay'adaha amniga inay baaris dheeraad ah ku sameeyaan falka lagu soo eedeeyay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya shalay ay ahayd markii Roble soo saaray amar culus oo si toos ah ugu socda wasaaradda arrimaha dibadda kaasoo la xiriira shaqaalihii laga saaray wasaaradda Roble ayaa wasiir Cabdisiciid Muuse Geele ku wargeliyay laga bilaabo 1 Janaayo 2022 shaqaalaha dowladda ee la bedelay ama shaqada laga qaaday inaan waafaqsaneyn go'aankii hore uga soo baxay golaha wasiirada wuxuuna amray in shaqaalahaasi dib loogu fasaxo howlahooda dibna loogu celiyo goobihii iyo xafiisadii ay ku shaqeynayeen si kastaba arrimahan ayaa ku soo aadaya iyadoo dalku ku dhacay isbedel siyaasadeed waxaana wasiirka arrimaha dibadda uu kamid ahay saaxiibadii siyaasadeed ee maxamed cabdullaahi farmaajo waa tahay daawadayaal weli waxaad daawanaysaan wararka Ogaal TV mooshin ka dhan ah madaxweyne lafta garan oo ka qarxay muqdisho iyo beelaha degil iyo mirifle oo dejiyay qorshe xilka loogu tuurayo saaxiibkii siyaasadeed ee maxamed cabdullaahi farmaajo maamulka koonfur galbeed uu hogaamiyo madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta garan ayaa haatan wajahaya
mawjado siyaasadeed oo cusub kuwaasoo ku soo aadaya kadib doorashadii soo dhammaatay. Muqdisho iyo Baydhabo ayaa waxaa ka kala socda kulamo siyaasadeed oo ka soo horjeeda kuwaasoo ay wadaan siyaasiyiin reer Koonfur Galbeed. Sidoo kale waxaa soo baxaya guux ku aadan mooshin ka dhan lafta garan kaasoo haatan abaabulkiisu ka socdo magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya. Haddaba muxuu sal ku hayaa xiisadaha siyaasadeed ee Koonfur Galbeed? Wasiirka Wasaaradda Haweenka iyo Xuquuqul Insaanka Soomaaliya Marwo Xaniife Xaabsade oo ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed ayaa qoraal soo saartay ku bartilmaameystay sida wax u jiraan iyo waxa la isku hayo. Gudoomiyaha gobolka Baay, gudoomiyaha baarlamaanka, taliyaha ciidamada qaybta 6aad qof xildhibaan ka soo wada dhigay maamul hogaaminaya mise dadka dhahaya December waa in doorasho dhacda ayaa maamul dhisaya ayay tiri Xaniife oo hadalkeeda ku bilowday. Xaniife oo hadalkeeda sii wadata ayaa ugu baaqday madaxweyne lafta garan inuu wax ka barto muddo kororsiga hore u fashilmay ee madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxayna intaa ku dartay in muddo kororsiga uusan xilligan ka shaqeynin Soomaaliya. Waxay ila haboon ayay tiri madaxweyne lafta garan inuu cashir ka barto muddo kororsiga baarlamaanka 10aad ee Soomaaliya halka uu ku dambeeyay. haddii uu muddo kororsi Soomaaliya ka shaqeynayo taas ayaa shaqeyn lahayd waqti badan ha isu gelin doorasho u diyaar garow tartan ayaa xalka ku jira ay qoraalkiisa raacisay wasiirka haweenka. Ugu dambeyn waxa jawaab kul ka bixisay shirki jiraa'id oo maamul ku qabtay magaalada Baydhabo kaasoo kaga hadleen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka oo ku jiro Maxad Cabdiraxmaan Aadan oo weeraray garabka ka soo horjeeda lafta gareen. Waxay tiri waxba ma soo kordhinayso shir jiraa'id iyo booto Soomaaliya qori waa lagu kala adkaan waayay adeerka Generaal Maxad intaas uu og yahay doorasho bis ayaa lagu kala adkaan karaa wadadaas ha uu gaasimo adeerkay madaxweyne lafta garan waxay ka soo hara waa iska foodo ayay tiri. Si kastaba arrimahan ayaa ku soo aadaya iyadoo haatan Soomaaliya ka dhacday isbedel siyaasadeed kadib doorashadii ku soo baxay Xasan Sheekh Maxamuud. waa tahay daawadayaal madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa albaabka ka xirtay taageerayaashii Farmaajo iyo magacaabista xilka ra'iisul wasaaraha oo meel gabagaba ah maraysa. warar uu kalsoonaan karo helino ayaa sheegaya in saaka xarunta madaxtooyada Soomaaliya loo diiday inay galaan qaar ka mid ah xogaga wadaniyiinta kuwaasoo aad loo yaqaan una aasaasay madaxweyne Farmaajo. Xogaga wadaniyiinta ayaa koox si weyn u taageersanay madaxweyne Farmaajo oo mushaar laga sii jiray madaxtooyada waxaana kooxdaasi iskugu jiraan dhowr qaybood kuwa qaarkood xafiisyo ku lahay xarunta madaxtooyada. albaabada laga soo galo xarunta madaxtooyada ayaa la dhigay warqado ciidamada lagu amray in aysan soo deekan cid aan ahayn shaqaalaha rasmiga madaxtooyada. waxaa loo diiday soo galaa madaxtooyada aqoonsiyada xoogga wadaniyiinta iyo kuwo kale oo filla Soomaaliya u sameysay taageerayaashooda. ciidamada ilaalada madaxtooyada ayaa fuliyay amarka la siiyay waxayna saaka celiyeen xogaga wadaniyiinta iyo xubno kale oo yaqaaneen oo awood badan ku dhaxlaa filla Soomaaliya intuu Farmaajo joogay. kaararka aqoonsiga ay bixiso filla Soomaaliya ayaa la siiyay shakhsiyaad badan oo taageero ah Farmaajo waxaana maanta albaabka soo xirmay dad badan oo guulwadeen ka ahay 5 sano la soo dhaafay. shaqaalaha rasmiga ah madaxtooyada Soomaaliya ayaa sidoo kale filaya in maalmaha soo aadan isbedel lagu sameeyo loona wareejiyo qaarkood xafiisyo kale ee dawladda si ugu shaqeeyaan. madaxtooyada Soomaaliya ayaa inta badan isbedel ka dhaca saameyn ku yeesha shaqaalaha iyo dad kale awood ku lahay waxaana albaabada madaxtooyada u furmaa dad kale oo dibadjoog ahay oo ayna soo raaca nidaamka cusub ee la wareegay xukunka. waa hagaag daawadayaal ugu dambeyntii xog laga helayo dowladda shisheeye oo si sharci darro ah uga kulmaysa kheyraadka Soomaaliya iyo dowladda cusub oo dejisay qorshe cusub oo lagu xisaabtamayo dowladahaasi. warbixin dhowr ah oo daabacday hay'adda Blue Marine Foundation ayaa shaaca ka qaaday cadeymo muujinaya kulmaysi sharci darro oo maraakiibta qaar ee dalalka Midowga Yurub ay ka sameeyaan xeebaha Soomaaliya. warbixintan oo la daabacay ayaa tusameynaysa dhaqaaq sharci darro ah oo maraakiibta dalalka Spain iyo Faransiiska ka sameeyaan badweynta Hindiya iyagoo aan haysan wax ogolaansho oo ku saabsan kulmaystaan xeebaha Soomaaliya. warbixintan ayaa imaanaysa iyadoo guddiga kulmaysiga badweynta Hindiya ay ku kulmeen dalka Seychelles iyagoo ka wada hadlay sidii loo badbaadin lahaa noocyo ka mid ah kalluunka oo ka sii guraya badweynta Hindiya. noocyadaasi ayaa la isticmaali jiray tan iyo 2015
oo si xad dhaaf lagu kulmaysanayay taasoo keentay in aad u yiraahdaan waxaana hadda loo baahan yahay in la yareeyo 3 meelood meel si dib ugu soo laabto ilaa sanadka 2030. wasaaradda kalluumaysiga Soomaaliya ayaa xaqiijisay inaysan wax shati ah kalluumaysi siin maraakiibta dalalka Spain iyo Faransiiska. labada dal ayaa cadeemaha la helay muujinaysa in badda Soomaaliya kalluumaysteen sanadihii 2017, 18, 19 iyo 2020. xeebaha Soomaaliya ayaa muddo 14 sano waxaa ka shaqeynayay maraakiib ka socda midowga Yurub oo ay saaran yihiin ciidamo la sheegay inay ka ilaaliyaan burcad badeedka kuwaasoo fuliya howlgallo loogu magac daray Atlanta. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa howlgalkaasi soo gabagabaysay bishii March 2022 kadib markii diideen waqti loo kordhiyo taasoo aad ugu cadaadisay midowga Yurub. isbeddelka hoggaan ee hadda ka dhaca dalka waxaa la filayaa inuu horseedo waxqabad muuqda. guud ahaan daawadayaal halkaas ayaan ku soo gabagabeeynaa wararkii Ogaal TV aad ka daawanayseen. amaana Allah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.